Sheekada filimkani waxay ka dhacaysaa tuulo yar oo ku taalla gobolka Gooba, halkaas oo uu ku nool yahay nin lagu magacaabo Vijay. Wuxuu leeyahay xaas iyo 2 gabdhood, wuxuuna maamulaa xarun yar oo filimada lagu daawado, halkaas oo nolol maalmeedkiisu ka soo saarto. Balse hal shay ayaa ka dhigay mid gaar ah. Vijay wuxuu aad u jecel yahay filimada, wuxuuna ka bartaa fikir iyo xeelad uu ku wajaho dhibaatooyinka. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadha weyn ee Vijay ee lagu magacaabo Anju ayaa waxaa si qarsoodi ah u sawiraya wiil lagu magacaabo Sam Dashmuq, kaasoo ah wiilka keliya ee ay dhashay sargaal sare oo booliis ah oo lagu magacaabo Meera Dashmuq. Sam wuxuu Anju ugu hanjabayaa inuu faafin doono muuqaalkeeda haddii aysan isaga raacin oo wuxuu rabo aanu u samayn. Arrintaas waxay ku noqonaysaa qoyska ceeb iyo cabsi weyn oo soo wajahday. Kadib waxaanu aragnaa xilli habeen ah oo Sam soo aaday guriga Vijay isagoo doonaya inuu soo wato Anju, weliba si xoog iyo kibir ah, waayo waa wiilka keliya ay dhashay sargaalad awood ku leh tuulada. Anju iyo hooyadeed ayaa waxay bilaabayaan inay iska difaacaan, laakiin xaaladda ayaa faraha ka baxaysa. Anju ayaa waxay bir madaxa kaga dhufanaysaa Sam, waxaana si kama ah ay ku dilayaan Sam. Anju iyo hooyadeed waxay ku argagaxayaan geerida Sam. Gurigoo dhanna waxaa qabsanaya argagax iyo walwal, maxaa yeelay haddii runta la ogaado qoyskooda wuu burburayaa. Ugu horeyn meydka ayay meel ku qarinayaan. Kadib Vijay ayaa ogaanaya arrinta dhacday. Vijay oo hadda qoyskiisa soo wajahday khatar xooggan ayaa waxa uu diyaarinayaa qorshe uu ku badbaadin karo qoyskiisa. Wuxuu maskaxdiisa ka soo saarayaa xeelado uu ka bartay filimada, wuxuuna qoysku u sheegayaa inay si taxadir leh u raacaan tallaabo kasta. Qorshaha uu diyaariyeyna waxaa ka mid ahaa inay booqdaan meelo kala duwan, maqaayado iyo shaneemo iyo meelaha dadweynaha, si markhaati badan ay u muujiyaan inaysan wax lug ah ku lahayn maalinta wiilka la weeyay qoyskani. Vijay wuxuu si qarsoodi ah ugu aasay meydka Sam god dheer oo ku yaala dhismo cusub oo booliisku dhisayeen. Sam markii la waayay hooyadiisa Meera waxay bilowday baaritaan adag, iyadoo waa sargaal sare oo awood badan, waxaana ka go'an inay ogaato waxa ku dhacay wiilkeeda. Booliisku waxay qoyska Vijay oo lagu shakiyey dilka ku bilaabayaan baaritaan iyo cadaadis joogto ah, xitaa way jirdilayaan. Laakiin Vijay iyo qoyskiisa waxay si buuxda ugu dhagan yihiin qorshaha uu diyaariyey. Qof walba wuxuu sheegayaa isla sheekadii isagoo xasuusan tababarkii uu siiyey Vijay. Mar kasta oo boolisku isku dayaan inay helaan cadeymo, waxay la kulmayeen jahwareer iyo dabin kale oo u dhigay Vijay. Xitaa Meera iyo ninkeeda ugu dambeyn waxay ogaanayaan in wiilkooda uu dhintay, balse ma haystaan cadeymo sharci ah oo ay dambiilaha ku qabtaan. Vijay, Meera iyo booliiska waxay ka hor istaagay xaqiiqda inay ogaadaan, isagoo adeegsanaya keliya maskax iyo dulqaad. Ugu dambeyn Meera way ku weerartay kiiskan, wayna ka quusatay inay ogaato qofka dilay wiilkeeda, balse qalbigeeda kama go'in geerida wiilkeeda, waxaana laabteeda gubayay murugo iyo cara ay ka salgaari weyday. Dhanka kale, Vijay iyo qoyskiisa waxay u muuqdaan kuwo ku nool noloshooda caadiga ahayd, balse Vijay qalbigiisa sir weyn ayuu ku qarinayaa. Wuxuuna u sheegayaa qoyskiisa in badbaadadoodu ay ku xirneed isku duubnidooda iyo kalsoonida ay isaga ku qabeen. Daawadayaal, sheekadu waxa ay muujinaysaa sida nin caadi ah oo aan wax awood ah lahayn ugu adkaan karo nidaam booliis oo xoog badan, isaga oo keliya adeegsanaya maskax, qorshe iyo casharo uu ka bartay filimada. Ugu dambeyntii, qoyska Vijay waa badbaaday, balse rajada iyo runta meydka Sam waxay weli ku aasan yihiin meel aan cid kale ogeyn. Daawada, ilaa halkan haddii aad ila soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad like ii saarto, dhiirigelinaya ii tahay. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir si aad ula socoto muuqaalada aan soo dhigno. Nabadey.